السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواء ووردبريس كبرى في الصومالي وعنكو برندو نصير الله سميه ويب سايت كوديسان ووردبريس. عشان كلمات وحن كبلها بينا إن نصمينه خاند أنكو حرينه فيلاشا أن نخشد أصمينه مفهمتي. مركا وحنكو حرينه ماشي وبعده ووردبريس خاند الله يغانو WB content وحكو هجرة قيم له تيم وأركينا بدأ صحيح أصمينه مركز خاند قسم سنة مفهمتي. وأنا قسمين يا مركز خاند بحي أو أقونكال 2020 أو خانad darto waa ka sameynaysaa waxaan halka ku xireen doonaa marka faylasha aan ugu talagalay inaan ku dhisno webka insha Allah ma fahanti waxa kale ogaanaysaa marka intaynan bilaabin waxa kale ogaanaysaa laba fayl oo muhiim ah inay jiraan marka laga hadlayo WordPress-ka labada fayl la'aantood ma shaqeeyo WordPress-ku labada fayl marka waxa weeye waa index.php oo ah macna faylka xambaaraya xeerarka HTML iyo CSS iyo PHP ma fahanti marka faylkaas waa muhiim waana ubuucda ama la dhabarta WordPress-ka faylka labaad waxa weeye waa CSS wuxuu xambaaraa isaguna naqshada waxa kale oo hawshiisu tahay inuu WordPress-ka fahamsiiyo in naqshadaas ay jirto marka waxa lagu qorayaa xeerarkan lagu qorayaa arkin hadda qori doona insha Allah xeerarkaas marka waxay fahamsiinayaan naqshadaada inay jirto mid jirta tahay ma garatay doo diyaar ma tahay 10 أبلونه 10 كود أبلونه مركو حصود ديارستها كود إديتركي أما آلة حقوق قرن لهيد صود ديارسو وعن كبلا بنا مركا ميل بنان أو فارغة ما كبلا بنا إلى أن جارو مركز أن حوشنا أن بيسنو ونقشط في عصبين إن شاء الله ما قرأتي مركو أوه رئيسو حسب يسا سيرفر كيفر مركا فرتي مركا دار مركا أنا أقول كلب يا سيرفر كيفر دار مركا سيرفر دار مركا سكدار ستار بالله ممكن ستار سايت سو سيرفر كيفر دار سيرفر كيفر شغية حنري هو شغية MySQL PHP iyo Apache marka kuwaas ay shaqeynayaan waxa ay u shaqeynayaan marka inuu WordPress ku shaqeeyo way ma garad computerka aan ka dhigno server ka dhigno ma garad marka waxaan leeyahay start marka haduu daarmo wajida markuu daarmo xagee marka aan webka gelinayna faylka xagee ka sameeynaa marka halka fiiri ay ku qoran tahay local sites aqoonkaal aqoonkaal bay u qoran way magacaan u sameeyay webkayga waa aqoonkaal ha adigu waxa rabto halka ku qoran ma fahanti halka riix waxaan ku furmay marka meesha uu ku jiro webku ugu xiranayso waxa ay tahay marka meesha qoranta app halka riix marka waxa sii riixdaa public mujida WordPress waa marka WordPress-ka macnaha faylkan soo arkayni macnaha faylashan aan u bixinay ugu cada waa kuwan aan fahanti marka hadda waxa ka sii gashaa adigu marka WP content halka waxa ka sii gashaa marka theme halka waxa kugu jira saddex theme baa kugu jira hadda saddex theme marka webka galno aan eegno ma fahanti halka waxaa tirada view waxaa tirada admin baa ka wadaa admin soo eegto gudaha webka markaa ka loo garay waxaan niri markaa gasho appearance halka fiir appearance waxaa ku jira theme-kii ma jirto halka theme-ka sii gal marka saddex theme arkayna waa kuwana 1 2 3 halkaasaan keena kusoo dareynaa insha Allah ma garata markaan sameyno theme-kaan sameyno halkaas soo gelaya markaasaan active ka dhigi doonaa si aan naqshadan ugu sameysano saddex theme marka waa kuwana halka marka waxaan ka bilaabnaa meel feeran ka bilaabnaa soo maaha halka waxaa ka sameystaa marka qaanada u bixisay magaca webka u bixinay theme-kaaga marka waxaad tirahdaa home halka riix home kadibna waxaad tirahdaa new folder waxaa u bixisaa marka waxaan u bixinayaa aqoonkaal 2020 marka taasii gal waa faaruq mujida waxa inuu ku jira male waa empty folder halkaasaan ka bilaabayna insha Allah ma fahanti waxa ugu horeysa marka aan sameynaa maxay tahay waxa khastaba si uu u shaqeeyo WordPress-ku laba fayl baa khastaba index.php iyo style.css taas sameeyna marka la soo bax waxa weeyaan code editor aan automar sameeynaya hata marka waxaan iska xir welcome-ka ana file new file waxa u bixisa marka save garay markaas file save as wuxuu galaya marka mujda aqoonkaal 2020 halka waxa u bixisa marka index.php waa khasab waa inaan ka dhigto php ma fahanti marka save de marka waxa save garaysa marka php oo ugu jira waxa ugu jira index bay ugu jira mujda aqoonkaal 2020 ugu jira naqshadeeda ma fahanti new save as waxa u bixisa marka style.css style.css marka qaanada inoo fiir marka 2020 ahayd waxaanu ku jira laba fayl soo jeeda index iyo style kan index oo diyaarsan marka hore marka waxaan ku qoraynaa marka ugu horeysta saan u sameeyno markaas naqshada bilaabana soo ma marka muxuu asaas u ah waxaan WordPress ku waxa asaas u marka hore
wuxuu adeegsadaa HTML iyo CSS marka HTML kan ka bilaabana meeshan HTML waxa weeyaan waqti kaga qaadi maayo hadda HTML inaan qorno waayo waxaan qiyaasaya inaad soo baratay HTML ka ama aad firid ka haysatid marka hadda firid ka haysa waxa weeyaan waxa HTML ku bilaabataa doctype oo u tilmaamaysa browserka in waxaan yahay HTML kadib waxa la qoraa HTML oo la furayo soo jeed halkaas waxa laga xirayaa marka HTML kadib waxa la furaa head waxa la xiraa head ka la xiraa kadib waxa la furaa body waa la xiraa ma fahanti waxa lagu qori doonaa meeshan way marka tusaale ahaan waxa lagu qorayaa ciwaanka ay qoraalada oo kaleeto waxa qoraysaa marka h1 h2 waxa qoraysaa markaas ciwaanka qoraalka koowaad h2 waxa lagu qorayaa marka meeshan waxa lagu qorayaa xarka inta lagu qorayaa dhaxal ma fahanti kuwan waa bedeli doonaa insha Allah markaan gaarno meesha looga baahan yahay bedelka marka hadda waxa muhiimada waxay tahay waxa hadda ku diyaara file index ah oo ku diyaar oo HTML caadi ah ma garatay marka save file save هذا مرة حكوا سيف جريسن أما كوا حفظن فايل كي إندكس أو كوا قرن HTML كي عادي هذا فهمتي مرة صوت ده فايل كي ها ستايل كا مكود ديار صوت جد فايل كي ستايل كا فايل كا مرة حكوا قرينا حير بلو على هذا كومنت اللي هذا كاسو بس كنت تماما يا نقشة هذا إنه يتعمل جرته ما فهمتي مرة حلو بلعبة كومنت وحلو يغنوا أنا مدن وحنا حرام كومنت ولا حرام كاس هالكا وحلو قرأ وعارك الدونو أي واحد قلت الماما يا ووردبريس إنه نقشة هذا واحد جرته ما فهمتي waxaa lagu bilaabaa theme name laba dhibcood marka magaca theme ku qor waxaan u bixinaa anoo aqoonkaal 2020 kadib waxaa qoraysaa theme URI oo ah linkiga themeka meesha kaga jiro internetka waxaa kaga jira tusaale ahaan http://aqoonkaal.com/2020 oo tusaale ahaan ma fahamtay kadib waxaa qoraysaa author oo qofkii sameeya kala magaca ku qoraysaa ma fahamtay kadib waxaa qoraysaa description oo ah qeexid kooban waxaana ku qoraysaa waxa theme ku saabsan yahay waxaa leedahay marka themekani kadib waxaa qoraysaa marka versionka uu yahay inna marka waxaa ka bilaabna marka version 1.1 qasab maaha inaa 1 ka bilowdo waxaa rabta ka bilaabi kartaa laakiin 1 baan ku qorayna hadda kadib waxaa qoraysaa waxa leedahay lesson oo dadka u sheegaysid waxa weeyaan lessonka macnaha muhiimaddu waxay tahay in la sheego barnaamijkan waa free soo maaha marka lessonka uu ku shaqeeyaa waxaa loo yaqaanaa halka marka ingiriisi ku qoran yahay waxaa leedahay marka waxa weeye wax ku shaqeynaya waxaa leedahay waxa uu ku shaqeynayaa dadka Soomaalida uu fahmaan ma fahantay lesonka GNU markaasaa lagu soo raacay hadhow ma fahantay kadib marka waxa la qoraa tags marka wuxuu tilmaamayaa naqshadaada waxyaabaha ka samaysan tahay ma fahantay ama midabadeeda oo kale la xusayo ma fahantay tusaale ahaan waxaan leenahay waxay ka samaysan tahay grey blue 2 column kadib waxa la qoraa waxa la yiraahdo text domain halka waxa lagu qoraa kelmad aad u adeegsan doonto tarjumada hadhow haddii in la tarjumo haddaa rabto in la tarjumo marta themekaaga oo luqad kale lagu tarjumo kelmadaas marka waxa ka anfacaysa tarjumada ma fahantay salaam waxa u bixin halkaas salaam khair wala inay aqoonkaan intaas marka waxa weeye marka la yiraahdo waxa la yiraahdaa save maxaad sameynay waxaan sameynay file aan u bixinay style.css waxaan ku qornay theme name magaca themeka waxaan u sameynay themeka ciwaankiisa meesha internet ka jiro waxaan qornay qofkii qornay magaciisa descriptionka wuxuu ku saabsan yahay kadibna waxaan qornay versionka lessonka kadib waxaan qornay tags waxa weeyaan waa kuwa gaar ah WordPress ku fahmayo wax kasta la kama qoro waxa lagu qoraa waxa fahmayo oo sida intuu ka yahay midabada oo kaleeto kadib waxaan qornaa text domain oo tarjumadii ma fahanti marka intaan idhaahno waa save gareynay save hubina save gareysay file save indexkina waa save gareynay soo maaha kadib waxaad tagtaa markaas themekaaga marka gal soo eegno themekana soo baxay soo eegno WordPress ka fur kadib waxaad tiraahdaa refresh soo jeedna themekani waa kaas marka haddii la riixo marka hadda la keli gareeyo waxaa soo baxaya aqoonkaal 2020 version 1.1 qofkii qoray naqshadda ma fahantay waxaan ka ilownay linkigii waan ka ilownay ma fahantay linkiga marka qoraaga waan ka ilownay marka sug aan ku noqono markaas waxaa lagu qoraa linkiga qoraaga ma fahantay save it refresh marka maxaa noo diyaara waxaa noo diyaara markaa themekii waa diyaarinaa soo maaha aan ku noqono waxa intaan sameynaya ma jedid theme name magacii themeka waa kaa mawjida halkaas ku qoran yahay 2020 versionka marka waxaan leeyahay waxaan versionka 1 waa kaa marka versionkii qoraaga marka waxaan leeyahay author waa kan maxamed cali
ama caaga linkiga marka waxaan nidhi author URL linkiga halka la klik geliyo waxaa loo tagaya aqoon kaal baa la tagaya kadibna waxaa loo sameeyey description waa kan naqshadda waa tababar meesha tagskina waa kuwaana marka mawjida blue gray two column halkaas kasoo baxaya ma fahanti marka waxaa hadda kuu diyaaran naqshad waxbay ku qoraan laakiin oo diyaar bay ku tahay soo maaha marka waxaa tiraahdaa active fadhi marka insha allah ma fahanti waxaa marka active marka naqshadina marka ugu horeysa mawjida oo diyaar ku ah webka gal marka waxaa gashaa ka gelaysaa aqoon kaal dhood local oo magaca webka dhood local ma fahanti mawjida waxaan ku qormay ciwaanka qoraalka koowaad waxay ku qoran hadalkaas waa kala mawjida index ku qornaa ciwaanka qoraalka koowaad ma fahanti marka hadda macno badan ma sameynayso taas laakiin waxaa arkaysaa marka in laakiin waxaaga hadda ay isu ka hagaagsan yihiin ma fahanti naqtinaha marka aynu waxaan soo barnay inaan sameyno laba fayl mid waxaan u bixinay index php oo kan xambaaraya xeerarka html-ka wuxuu kaloo qaadi doonaa lagu qori doonaa xeerarka guud ee php-ga insha allah ma fahanti iyo faylka labaad oo ah style css oo kan fahamsiinaya wordpress-ka inuu naqshadada shaqeynayso waxaa kaloo faylka loo adeegsadaa lagu qori doonaa halka hoose lagu qori doonaa xeerarka guud muuqaalka guud sameynaya oo css-ka ma fahanti marka maanta halkaa ayaan ku joojinaynaa insha allah xeerka soo socda waa muhiim marka kaas waxa weeye waxaan ugu talagelaya cashar gooniya si markaas waqti maaragtay uusan kugu dheeraan casharada kugu dheeraan marka insha allah la soo cashar soo socda maanta halkaa ayaan ku joojinaynaa waxaan rajeynaya inaan ka faa'iiday magacay waa maxamed cali wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu